wararkan ka yeelanay magaalada Jigjiga ayaa waxa ay tilmaamayaan xaaladda halkaas inay caadi ku soo noqonayso oo dadweynuhu shaqooyinkooda ay bilaabeen isla markaasina ay dib u furmeen xarumihii ganacsiga ee muhiimka ahaa dhanka siyaasadana isbedelada ugu dambeeyay warbixintan idinka hayna waxa ay tilmaamaysaa in dawladda federaalka ee dalka Itoobiya ay ku amartay ama ay ka dalbatay xubnaha golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya inay yimaadaan magaalada Addis Ababa sida uu noo sheegay wasiirka adeega shacabka Mudane Axmed Koore oo khadka telefoonkan kula xiriiray markii horeysay waxaana uu sheegay arintaas inay ku gacan saydeen inay tagaan magaalada Addis Ababa waxaana na dhaxmaray wareysigan soo socda waxaan ku faragelin toos ah ku sameeyay dowladda federaalka Itoobiya iyadoo adeegsanaysa xoogga dalka ciidamada militariga iyo federal police ayaa ku deegaanka si toos loo soo farageliyay runaatii maalin maanta dhammaan wax la soo saxay la jiro oo dowladda federaalka ay arrinta saxda waxaad moodaa inay ka muuqdaan diyaar ahayn oo saadoodan madaxweynaha deegaankan oo si sharci ah xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya oo u sameeyay gurigiisa doorasho sameeyay xilkiina uu doortay in kala isla golaha dhexe ka tirsan iyo guddiga ka tirsanaa madaxweynaha hore loo doortay dooniya xisbiga inuu yahay ayaa nidaam sharci darro ah inta lagu qaaday Addis lagu geeyay oo ku xiran yahay ma warba ka heshay madaxweynihii hore inuu hadda xiran yahay wallahi madaxweynihii hore ana gudoomiye xisbiga Cabdi Maxamed Cumar waxa weeyaan inuu xiran yahay waa cadda sababta telefoonada ma shaqeynayaan lama isticmaali karo ilaa iyo makaayinta u tagtay aragtida ma jirto taas waxay ku tusaysaa inuu xiran yahay macnaheedu inuu xiran yahay ku tusaysaa waxa taasi dheer isagii markii talaabada la qaaday haddana in burburin lagu sameeyo cadaan ku leeyahay dhismaha xisbiga xukuumadda jirtay intaas haddana loo burburinayo meesha ka muuqata wala burburinaya waxa uga jeedaa waxa la bedelayaa nidaamkii xisbigu uu sameeyay ee ka dambeeyay Cabdi Maxamed Cumar يعني حكومة تشتري ها صادف نايت يمحقون في حزب جدا مغادر الشعب الصومالي التوبيا يقولون بحول عاد قد يفرن بلا حزب ديسمبوها لكن إن معرفة فرقين النار والبدل يتلقوا الصومالية ما ترى ريني بالدنيا الفرقين حتى أنا كنت بين عبارات الكلمة على فرقين ليا ده حوالي الحزب أنا وحزبي محقون يعني حراسات له شروع دي سنة له وأنا غير أكيد ما رح نوصل يريد تلقوها لكن واحد المدينة كأنه خصبة يا المدينة تصالحات أقول سوقاته بحيث كلها حزب صوت دولار هاي بعدين هذا السواء يا حال نوصل يدي هذا الشرطة إنه قال لي كل حزب وطن وحنقول على مكيف كرمان سلوكي وحنوارني مثلا حراسات في حزب قال مشروع يعني إلى شرع الدرجة هاي وزير maxaa ku jaban hadii aad tagtaan Addis Ababa sida dawladda federaalku ay idinka dalbatay xarun dhexe xisbiga leeyahay Jigjiga tahay ma inta baxsan Jigjiga xirasad kuma bilaayaan xisbigu shir oo ku qabsado oo ay yani shir xabada balad xawleeyaan ama guddiga fulintu kale dowladda xisbigu noola yeelin oo macnaha xisbiga balad xisbigu ma yeelin sida sharciga balad xilli waxa isugu yeeli karo dowladda xisbiga hadii aan markaan xaq u leeyahay aan joogin ama faa'iideyna dowladda ku xigeenka awood leh inuu isugu yeero wasiir waxaad noo sheegtay in magaalada Addis Ababa la idinka soo amray inaad timaadaan hadaad tihiin golihii dhexe iyo guddiga fulinta xisbiga ismaamulka Soomaalida arintaasina aad diideen waa ay cidda amarkaasi uu idinka soo gaaray wallahi ashkuru waa hada fiican waxa weeyaan fariin xaq u hadala oo xida xusha qorana ahayn ayaa noo soo hadlay xarunta dhexe xisbiga noo soo hadlay xarunta golaha xisbiga xulin xaq u leeyahay xafiiska EBR daftamay hadiga shawaaya soo hadlay golihii dhexe xisbiga ay yimaadaan guud Addis Ababa arinta markii saaka aan soo wada inay khalad ah tahay oo maartay ay sharci darrada baan u aragnay anaga markaa waxaan soo saarnay go'aan inaan Addis Ababa yeeritaanka ku tagin xafiiska hadiga uu yiri kale laakiin cid aan yaara cidii maxaa ku leeyahay u socota ama xal ama ay timaado hawsha eegto inay noogu timaado Jigjiga xarunta caasimada dowladda Itoobiya dabadna waxaan ku reestaan ugu kulmin xukuumadda iyo xisbiga lagu kulmo ma waxaad dareensan tihiin in qof kale ama siyaasi kale loo wado inuu madax ka noqdo deegaanka Soomaalida yani waxyaabaha soo qaadan kara waxa kamid ah xubno imakada dej Addis Ababa oo maxaa ku reeyay anaga naga mid ah guddiga fulinta dalka ka tirsan Addis Ababa joogaan xubnahaas waxay leeyihiin xorriyad ma haystaan oo waxa weeyaan xubin kale oo halka joogay laakiin dalka ka tirsan masiir federaalka ana ahaada la yiri maxaa ku reeyay la xiriira ninka la xiriira taa waxay ku tusayaan la baawar gareyn ninkaas oo deesayn leeyahay maalinta amar qaato kale marka xubinta ay dawladda federaalku amartay in laga amar qaato waa kuma waxa weeyaan waa wasiirka communicationka Axmed Shide weeyaan ayaa la leeyahay macallin la xiriira oo afayeenkii baarlamaanka halka joogay ayaa la Axmed Shide la xiriir qolida xisbiga ay yimaadaan arrimaha soo dheeyay geliya dhamaan waxa weeyaan waa khalad cad weeyaan dastuurkuna ma dhigayo xeerarka xisbiguna ma dhigayo wasiir waxaad sheegtay in sharci darro ay dawladda federaalku ku soo fargelisay ismaamulka Soomaalida Itoobiya hase yeeshee waxaa jira eedeymo la idin soo jeedinayo hadaad tihiin maamulkii Cabdi Maxamed Cumar
oo ku saabsan idinka qudhiinu sharciga inaad jabiseen oo xuquuqdii aadanaha ku tumateen sida uu soo jeediyay wasiirka xiriirka dawladda federaalka Axmed Shide oo warbaahinta la hadlay soo arintu uma muuqato in sharciga markiina waa ku doodaysaan waa saad shukura waa saad fiican horta أحمد شده حضن حزب الديمقراطي شعب الصومالي كبيرة بلها دحانا كترسن نحن فرص لما كانوا موجودين كهذا السبب وينتهي الحشمة احترام والنظام ديهاي لكن برعانتي علمها وقوها بنوع عاصو كلاها دمان بوارن نحن كورا حبك تشيرين أو خبط عادويا إساقنا كل شيء كتها بمقرمية أنا نحن كورا حقوق إنسانك نحن كورا وحن يانا حبن بيهم كبنا نشيرين لكن وحيسيقوا حقوق الكيهاي وقبشوكها إن عيدا كان الصوام ري مصاد ري أي مجال تشيل حقوق كقطان يرون الدنيا أو حقوق غيرها كده بس كما قلت هذا يريد أي حقوق الإنسان كوجفتي دولة الفدرال أيها كوجفتي ومن كذا بعد وحقوق دولة الصوماليين زي إثيوبيا كوجفتي وش يقول براكة كذا 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 عاد مدة الفدرال مسؤولية خالص haddiiba dawladda federaalka isbedelka ay doonaysaa uu dhaqan galo idinka maxaa idin qorshaa haddaad tihiin xukuumaddii iska casilay Cabdi Maxamed Cumar horta ana shukura waxaan ku sheegayaa anaga horta qorshe waxaan noo xisbigu waa xisbi difaacan qolis lixaas oo jooga guddiga filka joogta sharciyan xisbiga sida dooran kara hogaamintiisa sida dooran kara ana madaxweynaha ana gudoomiye xisbiga sida dooran kara anagu waan dooranay madaxweynaha cusub aan dooranay gudoomiye xisbiga aan dooranay gudoomiye xisbiga aan dooranay way bisaatahay ما نقوم كرتنا عن روح لا لقى سوق علي والله كهاي أتصل لقى سوق علي عديد حسب دي ستة سوق عديد حكم من التدريب يقولوا وليه اليوم ده ما هذا السوق اللي تشبيني هو عارين كذا لكن مدحونا وقصوا رح بشكل حسب ده طلبة عندكم هاي ديجانك يساقون بعض كرا بعيد كلام اللي يقولين كستنا نبغانا خاص بكرا وحن كلامنا احنا شيء بصير ده ما وصلنا هاي بصير بفدرال كثير ده دولة وحنا طلعت حنا لا تستن لكن الشرع ده هي حراسات ويا الحزب ده يشرع لي بالكم بالدستور مرة أنا طبعا